ururka haweenka qaranka ee naaw ee magaalada Og ayaa maanta dhismo cusub ku kordhiyay rugta booliiska ee magaalada Og taasi oo ay dumiyeen roobab dabaylo iyo duufaano wata isla markaana kala degay dhammaanba jiingad iyo loox wixii saarnaa mashruucani ay fulinayeen haweenka ururkani naaw oo ahaa iskaa wax u qabso ayaa ay ku tilmaameen inay tallaabadani qaadeen kadib markii ay arkeen rugtii kontaroolka magaalada Og oo dunsan isla markaana aanay cidna waxba ka qaban iyagoo intaasina ku daray markii ay u adkaysan waayeen ay ku dhaqaaqeen inay hawshani galaan mashruucanina fuliyaan iyadoo ay weliba askartu bacadka joogeen gudoomiyaha ururka naaw ee magaalada Og ayaa ugu horreynba mahadnaq ballaaran u soo jeedisay TV-ga caalamiga ee Somali Channel kana dhawaajisay sababaha keenay inay hawshani qabtaan sidoo kalena ka soo sheegaysay mashaariicda kala duwaneed ee ay halkani ka soo qabteen iyo ogba ku joogan ay waayeen inay aad u dhibaatoodeen marka waxa weeyaan wax qabadka magaaladu aad u jilicsan yahay annagu haddaanu nahay ururka naaw intii aan soo magaalada aanu abaabulkeeda iyo hawsheeda wax ka galay ee aanu hirgalay waxaanu samaynay kaabadihii istabta waxaanu samaynay jingadii maxaan ku dhahday booliska noo harsanayay ee roobka nooga dhuumanayay waxaanu samaynay nadaafadii oo aanu maxaan ku dhahday dhinac kastaba aanu galay waxaanu samaynaa malcaamadaha iyo maxaan ku dhahday meelaha ardadu wax noogu barato waxaanu geey xogayaha ururkani ayaa iyana qurbajooga magaalada Og ugu baaqday inay si laban horumarinta magaaladooda isla markaana aanay faraha kala laaban waxaana ay iyadoo hadalka sii wadata farta ku fiiqday muhiimadda ay leedahay inay ka urur ahaan wax la qabtaan booliiska deegaanka iyadoo sidoo kalena tilmaantay inay dhiseen kaabadaha kontaroolka iyo weliba qol jingad ah oo ay askartu bacadka ka gasho joogta reer Somaliland ee degmada Og u dhalatay inay degmadooda faraha ka laaban inay wax u qabato inay sida shacabku wax ugu qabanayaan wax ugu qabato lacagti bay hayaan dabadii bay u joogaan waxa weeyaan inay u soo gurmadaan magaalada soo caawiyaan iskuuladii baa ka jilicsan waxa weeyaan dugsi dhakhtarkii baa dhakhtar badda ma jiro waxa weeyaan qurbo joogta reer Somaliland waxaan ka codsanaynaa inay si buuxda nooga soo caawiyaan oo gacan nagu siiyaan oo magaalada noo dhisaan dhammaanba haweenka kale ee goobta ka soo qayb galay ayaa isaga daba maray inay maanta u soo tafaxayteen sida ay u dhisi lahaayeen labada qol ee rugta booliiska ee magaalada Og oo jiingada dabayli kala tagtay dhanka kale waxa iyana halkaasi mahadcelin ballaaran uga soo jeediyey ururkani haweenka ee naaw askarta iyagu ka howlgala rugtani oo ay ku tilmaameen inay muhiim u tahay inay ururada kalena ku daydaan maadaama ay haweenkiis xilqaameen asi kastaba ha ahaatee mas-uuliyiinta ururka naaw ee gobolka Saraar ayaa ay ka go'an tahay sidii ay bulshadooda si wada jir ah wax ula qabsan lahaayeen iyagoo ururkanina ay xaruntooda guud ku taalo magaalo madaxda gobolka Saraar ee Caynaba mana aha markii ugu horreysay ee ay qaadaan mashaariic noocan oo kale ah isla markaana dan u ah bulshada Maxamed Aadan Dirir Somali Channel Caynaba